السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa walaashiin bariira oo idin leh salaamo. maanta waxaan rabay in aan idin soo gudbiyo in aan idin sheego programkii inaan bilaabi doono. programkaasoo ah sidii jimka aan bilaabi doono programkiisa oo isbuuca dhalanaysa maalin ka mid ah aan soo geli doono. abaayooyin badan ay ila soo xiriiray dhaheenna qor ii sheeg si aad noola xisaabtantid insha allah. marka waxaa jirto kale abaayo badan ay ila soo xiriireen oo dhaheen waan rabnaa programka inaan bilaabo. marka wax yar ayaan rabaa inaan sheego haddii aysan rabin laakiin joogo sida wadamada qabowga kale exercise-ka ma ahan in ay is aatayaan keliya. haddaadan xibnahaaga lafahaaga exercise aada samaynin korkaaga lafahaaga wuu dhammaanaa. lafaha meesha isaga yimaadaana dheecaanka ku jira ayaa dhammaanaya. hadduu dheecaankaas uu haysto exercise ku filan uu haysto iyo cabitaan badan uu haysto iyo nafaqooyin uu haysto then ma dhammaanayo. marka ma ahan anigu caataan ahay meelaan iska fadhiisana waa iska seexana. lafa xanuunka aad u jeedaan waxaa keena waxay tahay inaad meel fadhiisatid. xitaa afrika haddaad joogtid qofba qoftay ka raaxa badanta qofba qoftay ka nasiina badan tahay way ka lafa xanuun badan tahay. marka ama afrika joog ama yurub joog ama wadamada qabowga kule whatever aad joogtid way ku fiicanta horta inaad exercise samaysid oo lafahaaga u fiicantay caafimaadkaaga iyo wadnahaaga dhaqaaqiisa. moor adiga aad seexatid oo aad dhulka dhinaca aabigtid ama aad fadhigaaga basatid moor wadnahaagii shaqayskiisii uu gabayo uu maxaa dhahay daciif noqonayo. adigana hadhowdii socodka badan wuu ku dhibaa, shaqada badan way ku dhibaysaa, foorarsiga badan wuu ku dhibaa, qoraxda xitaa way ku dhibaysaa. anayna igu dhacday waxaan idiin sheegaya dhan oo wax aniga igu dhacay. salaadii xitaa markaan dukanayo ma ku fadhiisan kari lugtayda bidixda. marka maxaa dhahay insha allah waxaan rabaa programka exercise inaan soo geliyo, programka timaha inaan soo geliyo. gabdho badana hadda maxaa dhahay programkii dhahay waan ka qayb qaadanayna waa nala xisaabtamaysaa. marka gabdhaha buugaan hadda soo gatay, buugaasaan ku qoranaa. qof walbaba waxay ii sheegaysaa tinteedii habkii ay u isticmaalayso wax walbo. marka waxaan rabaa qof walbaba inaan dhahay heblaaye miya waxaan u baahanahay in aad ii sheegto isbuucan meeqa jeer ayaad tinta sidaan ku dhahay samee aad samaysay. hal mar waad qaldami kartaa, 2 jeer isbuucii waad ka habsaami kartaa, laakiin more than 2 jeer haddaad ka habsaantid adiga ayaa timahaadi ku cayaartay. tintaada si kasta oo jilicsan tahay, si kasta u qurux badan tahay haddaadan ku dadaalin oo time aada siinin haddaba waxaan kuu sheegaa tintaadii inaadan is arkeynin oo kaasoo baxayo wax caws camal ah. marka haddii xitaa tintaadiina ay adag tahay oo adiga aad waxyaalaha aan ku dhahayo sameey oo aad samays ma ahan hebel mari ku dhahayo. adaa ogaan doontid waxyaabo iska basiid ah ayaan insha allah idin sheegi doonaa oo dhib idinku qaban doonin insha allah haddii allah subxaana watacaala yiraahdo. marka programka isbuucan ayuu bilaabanaa. gabdhaha waan kula xisaabtami doonaa insha allah. waxaan rabaa waxa aan soo gudbinayo wax iga istaahila inaan public soo hor istaago idin iraahdo waad fiirsanaysaan hadeertaan wax aan waxba aan ka jirin inaan anigana timekaygu ku dhameeyo because waan shaqaynaya iskuulan aadaya guurigaan hooye ka ahay. inta yarta hadda aan hadlayo howlaan qabsan karaa. marka ma rabi inaan wax bilaa micnaa meesha aan soo istaago. marka haddii wixii idiin shaqey waayo waxaan rabaa inaan ogaado aniga wixii ii shaqeynayo skinkayga waxaa laga yaabaa adi inuusa kuu shaqeynayna because adi inaan isku skin ahayn oo aniga allergy qabo oo sensitive qabo, laakiin adiga waxyaabo badan aad ku fiican tahay oo aad qabsan kartid. laakiin waxyaabo adi aan marsanaysid aniga aan marsan karaynin ayaa jirto. okay, laakiin tinta waxaan ogsoonahay in tintaada iyo tintayda isku si u shaqeynayo. maqaarka isku si ma u shaqeynayo, laakiin tintaada iyo tintayda isku si u shaqeynayo. wixina isku shaqeynayo maqaar ma ahan, waxa waaye waa tin, waa cagaar baxaya. cagaarka baxayan isku si u shaqeynayo. waxay u baahan yihiin in la xanaaneeyo, wasaqda laga bixiyo, cayayaanka laga bixiyo, la nadiifiyo, la waraabiyo. cagaarkan markaa nadiifisidoo gurtidoo hagaajisadoo sintid cagaarkaas kaloon la taabanin isku qurux ma noqonayso.
tintiina waa sida maqaarka bini aadankana waa siday marsadaan haddii allah subxaana watacaala yiraahdo marka programkayga maantay oo aan ka hadlayay maxaa la dhahay abaayonka aan la xisaabtamayo intaas ayay ku ekaan doontaa halkeebaad igala soo xiriireysaan halkeebaan idinkala xisaabtami doonaa waxaad igu adgaraysanaysaan facebookgayga ah bariira waa magaca inta aan kula jiro bariira loof aad gelinaysaa bariira loof markaad gelisid haddii aad rabtid inaan kula xisaabtamo si lama ogaan kari ma ogtahay waxaad tiraada abaayo gruubka igu daraa leedahay group chatting aad jirto aan magac u bixi group chattingkaas ayaan kugu daraa si aad ula socotid kugulana xisaabtamo markaad group chattingka aad soo geshid oo kale hadduu kuu fudud yahay qoritaan iisoo qor waxaad tirahdaa abaayo magaceyga hiblaayaa la yidhaahdaa qor haddii sometimes maxaa la dhahaya baabuura wadaysa waxbaa sameynaysa howlaa haysaa ama qoritaankiiba mid aad jeclid inaad qortid recordingkaad taabanaysaa waad duubaysa waxaa leedaha abaa hiblaayaan ahay waxaan u baahanahay in aad igu dartid maxaa la dhahay sketchalka aad igelisid oo aad igu dartid groupka oo aad igu dartid oo tiraahdi saas marka ha ka cabsoonin haddaadan xitaa qoraalka uu ku dhibayo gabdho yaryariso waxaa jiraan oon jaanis aan u helin iskuul in la geeyo gabdho yaryariso waxaa jiraan oo wadamada tageenoo jaanis aan u helin af soomaaliga inay bartaan laakiin luuqadaha kale qori yaqaan haddaada qori aqoonin no problem maantay allah subxaana watacaala wax walbuu noo fududeeyey maxaytaa fududeydkaas waxaa qabsanaysaa muxuu ahay ii sheegay recordingkaa qabsanaysaa waad duubaysaa aniga hebla ani qoritaanka iskuulaan soo dhigi jiray laakiin inaan hadalka duuba iyo inaan hadalka duubaan jecla because intaan qorqoraayo oo telefoonka kuleelkiisa farayaga i gubanayaba runtiya i gubanaysa laakiin waxaan rabaa si markino oo suul faraha aysan ii gubanin time yaruuna iga qaadanaa laakiin markaan aan dhaho waxaan qora timeka ugu badana maanta o dhan waxbaan qorqora laakiin intii seeto abaayo ma fiicantaha aan qora waxaa laga yaabaa in aan hadal badan aan duubo aniga saana waxaa laga yaabaa 1 minute ku ogolaanaa halkii duubidbo halkaas minute waxaa laga yaabaa inaan adduun oo dhan kusoo gabagabay laakiin waxaa laga yaabaa qoritaanka 1 minute marka ani ahaan wuu ii fudud yahay qoritaanka haddana waxaan ka jeclaa inaan duubo marka ha xishoonin afka soomaaliga haddaada qori aqoonin boqolaal milyano kulamida aad jirto adiga af soomaaliga ma qori aqaaniya abaa codanka alla maxaabuu dheeba codkaagaa soo duubaysaaba ana codkeygan soo duuba yaaba yaqaanaba haddaa xitaa rabtaan af soomaaliga waa idin bari karaa wax yar muddo gaabana idinku bari karaa haddaad iga soo codsataan abaayooyinka aan aqoonin haddaad iga soo codsataan galaasa inta ka bixina af soomaaliga waxaan idinku baraa muddo yar gudood ani meeshan waxaan u furtay wax walbo inaan isla sheer gareen haddii al yiraahdo maanta hadalkayga meeshaas aan ku soo ekeysiina insha allah khayr badanaa idiin dhaafaa wixii su-aal qabtaan comment below ku sameeya haddaad ku cusub tahay subscribe ku sameey si videogayga dambe aad u heshid insha allah schedule ma aana samaysanin oo ii sheeg maxaa la dhahayay maalin waxbaan soo geliya maalin wax ma soo geli maalin laba xabaan soo tuuraa marka intii aan kala qabsanayo oo schedule aan ka samaysanayo oo aan dhahayo wiigii 1 mar ama 2 mar ama 3 mar ayaan wax soo gelin karaana iska kee dulqaata insha allah abaayooyin badan waxaa jira su'aalo isoo weydiiyo idinkana waa idinkaga soo jawaabi doonaa abaayooyin kale waxaa jiraan dhaheen su-aalaheena dadka usoo bandhig waxaa laga yaabaa dad u baahan inay ka faa'iidaystaan intaasoo dhan insha allah waan maxaa la dhahay kasoo wada hadli doonaa laakiin idinkana time isiiya waad ku mahadsantihiin maasha allah ani farxada ay geliseen waan cabsoonaya laakiin waxaan helay maasha allah waxaan arkay soomaalida inay isku xiran yihiin inay isjecel yihiin anigana arrintan wallahi waxa igu dhalisay xitaa markaan arko wadamadaas kale sida isugu xiran yihiin fiidiyoyaasha habka ay wax u samaysanayaan aan arkay haddana markaan aniga aan cabsoonayo haddana soomaalidii markaan arkay abaayooyin badan waa mahadsantiin waan isnaqaanaa inta ila soo hadashay inta qadka aan ku wada hadalnay I love you so much guys
waad i dhiirigelisaan ana balan waxaan idinkaga qaaday inaan idinka seexanin intii awoodooda ama 2 jeer ha ahaado ama 3 jeer ha ahaado ama hal mar ha ahaato inaan wax idin soo dhigo idinkana su'aalaha fikrado badanoo waxaa laga yaabaa aniga aan markaan aan ku fikiraynin laakiin wixii aan aqaan isoo weydiiyey su-aasha waan ka jawaabi doonaa khayr aan kaga taga hadalka ma idinku sii badinayay waa idin fasaxa youtube-kiina waaye wax aniga si gaar ahaan aan u furto ma jirto waxaan rabaa inaan aragtideen aan isdhaafsiisano in laga faa'iideysto inaan wax u faa'iideyno inaan wax iska faa'iideysan hadda shirkada meesha ku dhan tahay wabilaahi tawfiiq intaan dib dambe aan isaga kulmeyno wabilaahi tawfiiq oo walaashin bariira oo idin leh I love you guys I love you inta aad dhiirigeliseen farxadda aad igu abuurteen I mean more energy isiineysaan thank you so much but meeshaas aan idinkaga taga I love you so much oo walaashin bariira again oo idin leh inta dib dambe isaga arki doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu I love you